isku soo baxaan oo ah mid looga soo horjeedo dad shacab ah oo dhawaan ciidamada dowladda Kenya ay ku laayeen deegaanada ka tirsan gobolka gedo ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Doolow ee gobolka boqolaal shacab oo ka careysan dhibaatada lagu hayo dadkooda ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee degmada dadka Bananbax ayaa watay booray ku qoran yihiin doonimayna Kenya ciidamada dowladda Hargeysa ceelwaq socod dheer kadib waxa la iskugu yimid goob fogaara halkaas oo ay dadka warbaahinta kula hadleen dowladda Kenya wax badan baan indhaha ka qabsanay maanta waxaan filahayaa dowlad anka inayna ku sameeyeen dadka degan gobolka gedo meeshaan iyo kuwii caalamku la socda intay dhibaato u geysatay Soomaaliya haddana ciidamadeedii baa ceelwaq jooga ay wax ku sameeyeen kismaayay joogaan waxay joogaan meesha afmadow dhobley bay joogaan gobolka Jubaland oo dhan bay ku jiraan dadka shacabkaana waa laynaysa masuulta galaysa toban iyo kow kuma ayna soo gelin dalka maanteed Soomaaliya ay ka haysato ama ay Kenya ka haysato ama ay Afrika ka haysato ama ay caalamka ka haysato ayadoo ama Soomaaliya bay xoog u soo gashay Soomaaliya cadawgeeda midka geedaha furan midka soo gabanaya kibirey dadka duushiyo kan basaaran noqdeen waa kana farmaajo madaxweynaha lagu cisaayo naga annagoo shan gabdhood hadda ka soo qaadanay qoy disiga waxa waa laga qaaday iskeeyay waa ogyahay samaha hadda wax ka qaban waayeen ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo ay wax ka qaban waayeen rashid iyo dhagax ku galeynaa shid iyo dhagax midaamana qoryaha saga ku furana kula dagaalamayna yaa qaadayna rasaasta qaadayna qoriga qaadayna waxa dhaafayna male dacdada shalay Kenya ay samaysay waa mid ugu dambeysay oo nagu samayn doonto insha Allah Mawlana maxaa yeelay ummadda caradeedu waa isgaartay xoogeeduna waa isu soo gaaray ciidan Soomaaliyeed baa dhisan oo maanta xuduudka Kenya oo dhan xiri karo waxaan xuduudka leenahay ma xuduud waa jidbeelaad Ingiriiskii sameeyay dalkii Soomaaliya wuu ka shaqeeyaa isagana u baahanay inaan soo qaadano kuma ekin meesha ay jidkiisa ku qoraysan waxaan sheegaynaa dowladda Kenya hadday iska celin karto dadka Soomaaliyeed oo maalin walba ku xadgudbayso hadday ceshan karto jidkii Ingiriis beenta uu ku dhisay hadday ceshan karto ha ceshanto waa soo soconaa Soomaaliya waxaan ambaaraynaynaa weerarka fulinimada ku dheehan ee ay lagu soo qaaday Kenya oo ay raggii ay dishay meydkooda ku geysay gudaha Kenya 30 kilomitir 20 kilomitir ay meydka wadatay oo raganimo ay meydka iska tuuraan ay iska waayeen waxaan u sheegaynaa meydkaas meyd badan inuu ka dambayn doono Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya istaaga waxaan Kenya iyo balad xaawo dadweynaha jooga u sheegaynaa annagu askari ajnabi ah inuu ku soo xadgudbo eeriyo Doolow waa ka xorownay adinkana waxaan idin leenahay ka xorooba ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow Aadan Baracali ragga la kaxaysayna ama ila xilmi oo wiilka aabihiisa ka mid ah waxaa ka mid ah warsama barre warsama ka mid ah waxaa ka mid ah Maxamed Shira xasan baa ka mid ah ragga la kaxaysay ilaa hadda raqi ruux maayo ilaa saacada raqi ruux maayo ku jira maayo waa in la sakiyaa Soomaaliya waa in la sakiyaa reegada waa in la sakiyaa hadda la sakiyaa waa soo noofure